السلام عليكم أصحابتا كل هذا مركله iyo boqsraate maanta barnaamijkeenu wuxuu daran yahay ninkan aad arkaysaan laakiin intaan barnaamijku ugu guda galin asxaabta like and share iyo follow wehelkina aniga dhiirigelin bay noqonaysaa iyo inaan barnaamijyadeedii soo badiyo ninkan saad arkaysaan ba warqad waxa uu qoran ya caawiya please laakiin dadku way dhaafayay laakiin naagtan ba lacag aad u badan siisay balse naagtu lacagta markay u ridaysay waxa ka raacay farqi dahaba oo ay xirnayd laakiin isagu aad ayuu naagta ugu mahadcelinayaa maadaama ay dadku u joogsan waayeen iyada kaliyaati lacag fiican siisay balse iyadu waxay u sheegaysaa in maalin uu tan dhaafmi doono oo maalin uu isbedeli doono balse wuxuu weydiinayaa isagu magaciisa inuu sheegto iyadoo magaciisa uu sheegaysaa ay weydiinaysaa isagana magaciisa balse ay iskaga tagtay isagoo aad ugu mahadcelinaya oo nasan tahay nasiixaya balse sadaqada kadib markuu soo saaray lacagtii siisay ayuu wuxuu ku dhaxarkay fargal dahaba oo halka sarna lug yari ka saaran yahay laakiin aad buu la yaabay isagoo soo xasuusanaya fargalkan cidda wadatay ama cidda uu ku arkay balse wuxuu xasuustay inay gabadhu fargalka lahayd isagoo magaciisa ku hayay meesle wadgaari balkadaba kaca laakiin odayga markuu kacay waxba uu arki waayay isagoo sidii uu raadinayay yani ama uu naagtii u daba socday uu meel ugu hagaago garan waayay balse laakiin maantina wuxuu tagay meesha lagu iibiyo faraageelada dahabka iyo waxyaalaha qaaliga balse gudaha waxa uu galay meeshii lagu iibinayay faraageesha ama fargalka saad u taqaanaanba ninka meesha jooga ayuu weydiinayaa ma iibsanaysaa waxaan ku wadaa fargalka laakiin ninku aad buu u yasayaa maadaama uu ninkan homeless yahay ama uu yahay darbi jiif laakiin wuxuu tusayaa fargalka uu wato isagoo ninkii aad ula yaabay ninka darbi jiifka iyo fargalka uu wato laakiin ninku wuu eegayaa fargalkii laakiin wuxuu arkay fargalka inuu halka sare dhul ka saaran yahay isagoo kule waaw yani bahal aad u qurux badan baa wataa laakiin kan waan ka iibsanayaa oo lacag fiican ayaan kaasinaya odayga waa yaabay lacag intee leeg badan iyo siisanaysaa isagu uu sheegayaa lacagta yani intuu qancinaysaa aad iga iibsatay isagu buu ku yidhi lacagta ayaan kusoo saarayaa balse ninkan wuxuu soo saarayaa lacag aad u badan oo miiska u duldhigayo odayga indhaha ayuu kala qaadayaa isagoo 3,000 meesha u saarayaa oo weliba lacag ugu sii biirinayaa odaygii indhaha ayuu taagayaa isagoo la yaaban fargalka yar iyo lacagta uu u geynayo balse wuxuu soo xasuustay naagtii hadalkii ay ku tiri maalin baad bedeli doontaa laakiin ninkii baa kule lacagta qaado 3,000 baa meesha ku duldhigay mid qaadatiisa laakiin odaygii wuxuu yidhi may ma rabo waayo lacag waxay ma tarayso isaga ayaa waxay taraya laakiin odayga fargalkiisii ayuu qaatay isagoo meeshii dib ugala noqday uu raadinayaa naagtii fargalka xidhnayd ama naagtii uu ka hadloobay fargalkani balse siduu odaygu u raadinayay oo kulba meel u istaagayay ayuu marka dambe wuxuu xasuusan doonaa wadadii ay u sheegaysay ama adreeskii ay siinaysay ku lahayd yani halkaas ayaan deganahay laakiin odaygu raadinayaa ayaa naagta ugu soo gali doonaa isagoo naagtan weydiinayaa yani ma ka shaqaysaa naagtan meesha balse naagta waxay sheegtay inay naagta meesha joogin laakiin xafiis kale ayuu aadayaa isagoo weydiinayaa ama magaca gabadhii ay u sheegtay ku dhawaaqaya haabay ku tiri halkan waad ka helaysaa gabadha ay suuqanaa kugu yeerayeen laakiin odaygu aad bay ula yaabtay naagtu odaygan homelesskii muxuu kaa suurayaa madarba jiifkani mar baad caawisa ma mar labaad baan ku caawiyaa buu ku tiri maya buu leeyahay fargalkaagii ayaan ku hayaa laakiin aad ayuu u faraxday iyadoo xataa naagtii meesha ka shaqaynaysay la yaaban odaygan darbi jiifka ee fargal luul ama dahaba u soo celiyay naagtu aad bay ugu mahadcelinaysaa iyadoo kule aad bad u mahadsan tahay ismaan lahayn uu ku soo noqonayaa fargalkaagu laakiin waa kaaga mahadcelinayaa haddii aad ii soo celisay in badan ayaan u warwarayay oon raadinayay fargalkan laakiin aad ayaad u mahadsan tahay laakiin isagu wuxuu sheegayaa in iyadu dhiirigelisay oo isagoo gidaar fadhiya lacag fiican siisay maadaama iyadu abaal u gashay inuu isna abaalkii u gudayo laakiin naagtu waxay u sheegaysaa ama ay leedahay waan kaaga mahadcelinayaa aad baan ugu murugayay ama ugu walwaliyay laakiin waad mahadsan tahay odaygii baa ku waa yahay sidoo kale laakiin odaygu ka dhaqaaqaya laakiin naagta meesha ka shaqaysaa aad bay ula yaaban tahay odaygan homelesska ama darbi jiifka
sida uu soo celiyay farga luula oo lacag aad u qiimo badan lagu yiri qaado balse naagtan sheekada ay aragtay ay computerka ama page ay leedahay Facebook ku qoraysa odayga darbi jiifka inuu soo celiyay farga gaariya ama farga la 5,000 sida iyadu sheegayso $5,000 isagoo odaygu يعني wax u fiican sameeyay balse daqiiqad ka bacdi naagtu waxay la kulantay odayga oo caawimad aad u badan dadku soo siinayaan ama dadku lacag u soo qorayaan si ay yani u caawiyaan maadaama uu isagu wax fiican sameeyay balse maalmo ka bacdi naagta ayaa u la timay iyadoo boorto weyn gacanta ku wada isagu salaamaya wuxuu ku leeyahay Sara miyaad soo noqotay laakiin odayga boortada ayuu dhigtay kale boorsadan eeg laakiin odayga borsad wax la yaabay buu ku arkay lacagtii uu meesha kaga yimi 3,000 ahayd oo libilaaban oo lacag ku dhawaad ilaa $7,000 ayaa meesha lagu keenay odaygu uu yaaban yahay waxay ma fahmayay buu leeyahay halkeed ka keentay yani sidaad siinaysaa laakiin naagtu waxa uu sheegaysaa inuu isagu wax fiican sameeyay iyadna wixii uu sameeyay la wadaagtay bulshada ku xidhan iyada biidkeega ta la ajigay ay dadku soo ururiyeen lacag aad u qiimo badan ama lacag aad u weyn oo dadku rabaan inuu odaygu yani kaga kaco meesha uu fadhiyo maadaama uu darbi jiif yahay inuu isagu noloshiisa ku kabo oo iskaga kaco darbiga uu joogo laakiin aad ayuu isagu mahadcelinaya isagoo leh Sara aad ayaad u mahadsantahay balse noloshu mar uun bay isbedeshaa asxaabta sheertu halkeen